okay bismillah marka waxaan sameynaynaa marka sidaana marka waxaan ugu qoran Java program keena marka waa noo diyaarsan yahay public class example iyo public static waxaan waa properties public waa property static waa property void waa property main waa property string rjs na waa wax loo yaqaano parameters waa ama qiimayaal properties maxaa laga wadaa macnaha muxuu yahay objectigan ama main methodkan muxuu yahay waa public waa static waa void wax hadda qiimo uu pass gareynayo malahan waa main waa public main waa main methodka ugu weyn waaye sidoo kale classkan muxuu yahay waa public waa class oo public private class maahan waa arki doona markaan gaarno inheritance iyo public class iyo private class wuxuu kala yahay halkan marka waxaan ku qoranaynaa basic Java program ayaan rabnaa tusaale waxaan rabaa inaan programka ay shaqeynayaan inaan arko kaliya welcome to Java ayaan leenahay kadib waan save gareynaa soo marka wuxuu save gareysan yahay example.java waxaan soo kicinaa magacaan soo koobiyeysanaa maadaama failkii aan joogo waxaan tagayaa marka waxaan leeyahay Java C kadibna waxaan leeyahay example.java Java C maxaan u leeyahay waxaan rabaa in la diyaariyo compile fileka rabaa in la diyaariyo compile filekaas marka dhow mashiinka uu soo akhrin doonaa wax error haduusan jirin programku uu shaqeyn doonaa hadduu error jirana halkaana lagu soo qaban doonaa muxuu yiri file not found example.java okay example.java okay waa save gareey maxaa dhacay okay cls dirde example okay waxaan noo raacsan .txt marka inaan ka reebo waa inaan caadi u save gareeyo waad saan leeyahay txt raacsan waxaan leeyahay save as kadib waxaan leeyahay example.java kaliya yes hadda marka wuxuu abuuri doonaa file gooni ah oo Java kali ah halkan fiiri waxaan rabaa example.java oo file kaliya okay kadib waxaan leeyahay hadda Java C example.java hadai save as leenahay test.java kadib halkaan waxaan ku bedeleynaa test aan ku bedeleynaa yajdeed test.java waa kana okay hadda marka waan bedeleynaa waxaan leenahay Java C test.java okay wax error marka ma jiro kadibna waxaan leenahay Java test.java marka fiiri Java C ga marka la diyaariyo file kala ii soo gali doona halkan oo loo yaqaano class file okay halkan fiiri aksa class file aksa filekan waa class file kana waa Java file marka labadan file maxay ka dhigan tahay kana waa kan anaga akhrin karno kana waa midka mashiinka uu kicin doono waayo waa dhow isku bedeli doona wax la yiraahdo byte code laga soo qaadi doono waa soo sharaxay ayaamii hore qaabka Java programkeeda uu soo kaco ama uu soo shaqeeyo okay kadib marka waa kana welcome to Java sidaas ayay igu soo baxday soo marka programkeega Java si nadiif ayaa loo soo akhriyo marka filekan ayaa maanta ku shaqeyn doonaa hadduu ilaahay yiraahdo okay buuga daan u laabana marka fileku waa noo diyaarsan yahay mar walba marka wax bedelo Java C kala ma diyaarinayno Java example ama test.java kaliya leenahay soo marka hore ayaan u socon doonaa marka insha Allah marka aan soo dul marna kan marka sharaxaad weyn ma galayno insha Allah marka halka waa soo sharaxnay Java waa software product yaa lagu diyaariyaa waxaan iska leh Sun Microsystem waa laga sii gatay hadda Oracle iska leh okay you have extension installed okay marka luqad walba marka saxo admit all luqad walba marka waa khasab shirkadii iska leh iyo inaad la socoto ogaato waa khasab marka okay marka inaad marka diyaarino wax la yiraahdo
writing Java programming language is the primary way to produce code. inaan Java program qorno waa wax kaliya aan ku heli karno aan ku soo saari karno code kaasoo loo duplicate gareyn karo ama loo qaadi karo inuu yahay Java bytecode oo jeeda Soma Java bytecode noqon kara. Though there are compilers available for other languages such as JavaScript, Python, and Ruby, and a native JavaScript language called Groovy, Java syntax borrows heavily from C and C++. Java code-keeda badanaa wuxuu u egyahay oo qayb weyn ee u eg tahay C iyo C++. C badankiina hadda waa soo qaadateen wax loo yaqaano C++ waa soo qaadateen mostly. marka dhib idinkuma marka inaad Java fahantaan. waxaa jira wax la yidhaahdo object oriented programming oo Java ay qayb ka tahay. waxaana loo yaqaanaa inheritance, modularity, implementation, encapsulation, binding. waxyaabahaas oo dhan ayaa Java ama object oriented laga helaa. okay, JDK see loo soo degsadaa waxaan ayaan dhaweeda soo hadalnay Java development kit halkan kasoo degsaa lagu yidhi. my first Java program hadda qornay kan waa kasoo hadalnay ayaan dhaweed. waxaa loo yaqaanaa comments ayaa loo yaqaanaa. kan weli waxaa loo yaqaanaa multi-line comment. kan kalena waxaa la yidhahdaa one line comment ama inline comment. waa kana basic Java code. waxaa laga rabaa public class example 1, public class static void main system.out by first Java program iyo labadii brackets ayaa laga rabaa. halkan waxaa lagu yidhi Java waa case sensitive, iska ilaalisa wax qorayso iyo maxaan ku iraahdaa sida aad ugu yeerayso iska ilaali lagu yidhi. halkan commentiga lagu sharaxay ka gudub. halkan waxaa lagu yidhi waxa ugu horeeya laga rabo inaad diyaariso waa Java C ama Java C file ama Java C ayaa laga rabaa. Java C ga marka waa compile the program. waa kan program ka compile gareyn doono waa. sidoo kale waxaa jira waxa yiraahdo java.exe oo ah executable. kan executable ka noqon doono waaye. okay, sidee Java usoo kicinay start aad tagaysaa run cmd kadibna cd aad leedahay oo laga wado change directory. waxaad tagaysaa failka meesha ku yaalo kadibna Java C example1.java ayaad leedahay. marka inta aad soo sameyna waaye example1.java. marka arday qaar oo cusub jirto saasa usoo dulmarayay iyo idinka ahaan inaad xasuusataan. sidoo kale halkan waxaa lagu yiri su'aal oo Yaasiin weydiiyay maalin oo ahayd IDE see loo isticmaali karaa. IDE waxaa la yidhahdaa integrated development environment. ma jira marka wax IDE oo la isticmaali karo software. yes, waxaa jira wax mid la yidhaahdo BlueJ oo freeware. waxaa kaloo jira NetBeans oo freeware open source ah. waxaa kaloo jira JCreator. waxaa kaloo jira Eclipse kan anaga isticmaalayna. marka waa freeware sidoo kalena waa open source. Eclipse gaana isticmaalayna hadduu ilaa yidhaahdo Eclipse IDE. marka for Java developers ayaa loo yaqaanaa. Eclipse ayaa isticmaalayna marka. okay, marka dhowr program aan qornaa hal mar ku tijaabinayna ayaan dhawaa soo aragnay. sidoo kale Eclipse marka si free ah loo soo degsan karaa. marka labadan kale waa Trail, IntelliJ iyo JBuilder ayaga waa Trail oo waxa laga baahan yahay. Trail waxa la yiraahdaa muddo ku shaqeynayaan kadib waa software lacag ina ku bixiso loo baahan yahay. variables waan ka soo hadalnay ayaan dhaweyd variables sida loo abuuraa marka Java la joogo. variable kala duwan ayaan abuuranay ilaa dhowr variables sidaan ayaa variablada loo abuuraa. so marka hadaan aragna marka variableska for example laba nooc marka variable ku arkayna iyadoo qiimaha banaanka laga soo gelin doono la isticmaali doono package la yiraahdo scanner iyo ayadoo maxaan ku iraahdaa qiimaha halkan laga soo gelin doono. for example variablada variable walba data type u baahan yahay. marka data type-yada Java oo kala duwan yihiin oo integer ah jiro, string ah jiro, character ah jiro, boolean ah jiro, kala duwan yihiin. marka tusaale yar aan ka arkayna marka for example halkan double ah jiro. sidoo kale halkan waxaan arkayna for example double oo kala leenahay kadibna mobile ayaa halkan gelinaynaa. isagoo waxayna 09076543 leenahay. kadib waxaa leenahay halkan int year leenahay is equal 2023 caadi sida C iyo aad taqaaneen waaye. sidoo kale char waxaa leedahay waxaa noo fiican inaan maadaama qaladaadka si fudud ku arki lahayn waxaa noo fiican inaan isticmaalo software ka qurxoon midkan oo notepad ka qurxoon. taas ayaan dheedo idin sheegay Sublime Text fiican. Sublime Text isticmaalayna marka Sublime Text ayaan isticmaalaynaa Java programs kadibna test.java waa kana failkeeni saxda waa kana warta soo kana marka isticmaalayna saan u aragna qaladaadka waxyaabaha waxa laga yaabaa farta weynayno waxyaabaha soo dhan marka uu soo qabana. halkan waxaa leenahay double
kadibna ama string yaa ku leenahay string name is equal waxaan leenahay cali axmed oo kale aan leenahay sidoo kale halkan waxaan u baahannahay double waxaan leenahay mobile is equal 090 76543 aan leenahay kadibna halkan waxaan leenahay double waa aragnay kadibna integer u baahannahay variable kale ku xig variable-da tijaabo ku arkeena marka integer waxaan leenahay year oo kale is equal 2023 sidoo kale waxaan leenahay char waxaan leenahay ch ama xaraf caadi oo isaga qaadana kadibna waxaan leenahay leenahay waxaa naga dhiman string waa aragnay double waa aragnay character waa aragnay okay intaana marka soo daawacanayna waxaan leenahay system dot out dot print ln print ln waxay ku dumin soo sheegnay waa new line ln marka la yiraahdo new line lagu daabici doona print kali marka la yiraahdana new line lagu daabici doono halka marka waxaan leenahay my name is kadibna balaas ay isticmaaleyna saan u soo qaadano meeshii la isticmaali jiray sida percentage d iyo waxyaabahaas kan balaas kaliya la isticmaala kadibna waxaan leenahay name inoo soo qabo kadibna sidoo kale waxaan leenahay system dot out dot print ln kana ka qurxoon waa aragtaan soo ma iskuma dhawo marka kadibna haddana qiimaha kale u baahanahay ma mobile number is aan leenahay kadibna waxaan soo qaadanaynaa variable-ka mobile-ka inoo haya soo qaadanaynaa kadib waxaan u baahannahay system dot out dot print ln inaan idhaahno year is oo kale plus waxaan leenahay year inoo soo qabo okay kadibna character-ka ayaa ugu dambeysiinaynaa dot out dot print ln kadibna character is kan waxaa loo yaqaanaa macnaha markaan double quotation qoraal ku dhex qorno waxaa loo yaqaanaa soo aragni soo ma marka character-ka lagu dhex qoro waxaa loo yaqaanaa string aan isbedelayna loo yaqaanaa qiimo aan isbedelayn marka la isticmaalayo ayaa waxaa la isticmaalaa double quotation-ka la isticmaalaa marka okay kadibna halkan waxaan leenahay plus kadibna waxaan soo qaadanaynaa ch aan soo qaadanaynaa okay intaan rabnaa marka inoo soo daabaco ayaan rabnaa marka okay halkaan waxaan leenahay halkaan haddaad doonto zero inuu kuu raaco waxaan ku khasbanaanaynaa halkaan inaan string ka dhigno suu noogu qaato lakin no problem bismillah java test dot java leenahay kadibna wuxuu kusoo saaray my name is cali axmed my mobile number is 9 point sababta u geliyo waa naqaanaa oo wuxuu u qaadanaa double inuu yahay ayuu qaadaa may sidoo kale wuxuu sameeyeyba character-kii oo naga bedelay waa aragtaan soo ma qoraalkan wuxuu ka dhigay iyanoo raacsan wuxuu u bedelay wax loo yaqaano hexadecimal number ayuu u bedelay intaan haddaan soo qaadano copy aad tiraahdo google aad gelisid to decimal number haddaad tiraahdo to decimal number okay convert de halkaan soo koobiyey okay percent to decimal calculator binary to decimal calculator decimal to binary marka uu bedelay marka xarfiyana maadaama halkaan aan ka dhignay wax loo yaqaano halkaan waxaan leenahay hexadecimal inuu yahay umaleynaa qaabku u isticmaalay converted okay binary convert halkaan soo geli waxaan rabnaa numberka saxda inaan aragno okay decimal kana waxaa u bedeshaa text okay halkaan marka haddaan ku bedelno variable kaan bedelno for example aan ku bedelno float qaabku u dhaqmaa aan aragno
حتى هذا جافا test.java اوكي ولي waa sidii halka waxaan raacinayna f inoo raaci okay so u garto inuu yahay float number kadibna waxaan leenahay java 0 ayuu gadaal ka raaci doonaa wali waa sidii okay marka habkan ugu yeeray maxaa ka qaldan mobile number is plus mobile okay hadaan ka dhigo integer halkaan f kan ka bedelo marka variable-da marka wax maamulo waa maxay waa data type-ka ku jira maamulo marka variable-ka noociisa waxa maamulo data type-ka ku jira ayaa noo maamulo marka okay isagoo hadda integer 0 hadaan ka hormarino no save garay mar walba save ina iraahday hadda 0 ka hormariyo dan wuxuu sameyn doonaa integer-ka wax loo yaqaano qalad ku jira xataa halkaan qalad iga soo galay miya okay kalima CLS deh okay waxaa qalad ku jira zirahaas okay waxaan leenahay string haddaan ku bedelno isagana maxaa dhacaya string haddaan ku bedelno dan halkaan waxaa looga baahanaa inaan double quotation gelino halkaana double quotation aan gelino marka sida c markaan joognay oo kale ama luqadaha kale programmingka variable-ka marka loo yeerayo magaciis kaliya u baahan tahay meeshaan inaa percentage d iyo percentage s iyo waxyaabahaas aad qorto no need uma baahnid marka waxyaaba marka laga luqad walba luqada kale waxyaaba ugu fiican tahay jirta marka hadda waa aragtaan soo maha string hadda markaa ka dhignay dan numberkii caadi u qaatay marka string marka muxuu number u qaadanaa soo dhihinay string waxaa lagu qiimeeyaa wax walba oo double quotation-kaas ku jiro ayaa marka computerka waxa uu yahay string waa marka hadday xaraf tahay laakiin haddii xarafkii aan ka bixino double quotation-ka dan qalada meeshaas ka imaanayo okay hadaan ka saarno for example-ka haddaan nidhaahno CLS deh java test.java dan halkaas qalada ka jiro artan soo node statement ayuu leeyahay ama compilation failed laba error ayaa halkaas noogu jira marka inkastoo qiimaha noo soo madhigay laakiin waxaa noogu jirta errors okay so marka waxaan sameynaynaa variables marka saasuu programka ama java ay ula dhaqantaa marka variables saas ayay jajreer mayde hadda waa soo aragnimo arkin ma engineer integer waa maya integer waa ka dhignay double ka dhignay float ka dhignay dhammaan marka farqiga u dhaxeeya waa aragnay engineer haddaan hadda halkan kugu celiyo integer haddaa iraahdo wuxuu samayn doonaa wax la yiraahdo ziraha koowaad ayuu naga tuuri doonaa maadaama integerka wuxuu qaataa whole number marka zirada koowaad way bixi doontaa marka aan tijaabiya marka waxaan leeyahay halkan Ahmed oo kale aan leeyahay okay kadibna waxaan leenahay integer mama stringiga maya stringiga qoraal magacay kaliya maahan magacay kaliya oo maya waxaa la rabaa qaabka uu computerka wax u qaadan karo inaad fahanto mogtahay wax walba double quotation la geliyo computerka string uu yaqaana ama number ha ku jiro meeshaas ama ha ku jiro wax loo yaqaano ama number ha ku jiro ama xaraf ha ku jiro wuxuu yaqaanaa string inay tahay haddii double quotation aan gelino haddii laakiin xaraf ay tahay hadda kan oo kale fiiri kan oo kale maxaa gelinay one quotation kaliya char way haddii marka noogu jirto meesha one single quotation wuxuu u yaqaanaa char ayuu u yaqaanaa marka saas waaye ya engineer ma isku mid waa engineer isku mid waa engineer double quotation-ka waxaad doontaa gelin kartaa macnaha string xaraf kaliya maaha double quotation-ka wax walbo la geliyo uu kusoo baxaa ma fahmay double quotation-ka wax walbo la geliyo si caadi ayay kuugu soo baxaysaa marka okay marka waxaan sameyn waa maasantahay okay marka waxaan sameynaynaa halkan waxaa jirtay qaab loo soo daabici karo halkan waxaan sameynaynaa for example waxaan rabaa hadda anoo halkan iraahday double quotation c halkaana double quotation okay dot out dot print ln waxaan leenahay
type of aan jirtay type of kadibna mobile aan leenahay type of mobile waxaan rabnaa inaan soo bandhigno value-ga ku jira nooca uu yahay macnaha nooca uu yahay mobile maxaa noogu jira value-ga data type ku yahay okay waxaan leenahay java c test.java okay compiler file kii waa la diyaariyay halkan maxay tahay cannot find symbol okay halkan waxaan naga qaldan integer ma rabno waxaan rabnaa string yaa rabnaa okay cls leh java c test.java waxaan naga qaldan halkan kale type of okay type of okay print ln type of حكم مكان okay دول كفيلنا print type print حربها variable كاس type كيس إن أركو type of variable in java okay وها على صوب بندق جري how to print type of variable hello plus name كتبنا types okay ما type of واي وحبا هالكان كذا type of mobile تعرف يقول جرب حيت هاي اوكي هالكان فير yes qalad ay ugu jira halkaan laakiin halkaan muxuu ku yiri meelaana wax ku jira laakiin halkaan muxuu ku yiri jireere aw yarkii waragtan soma halkaan fiiri type of fiiri muxuu yiri halkaan variable kan oo mobile maxaa noogu jiro yiri ya hello mal arka variable ada fiiri variable kan waxa variable kan mobile waxa noogu jira hadda number oo 0907 number aan noogu jira kadib waxa yiri marka waxa ay soo saartaa type of nooca uu yahay ama data type uu yahay variable kan mobile type kiis isoo saaraa yiri muxuu isoo saaraa hadda fiiri waa string marka hadii number la geliyo iyo hadii xaraf la geliyoba waa isku mid marka wuxuu qaadan doonaa string uu qaadan doonaa ka gudubna marka aad ma san tahay marka su'aalaha muhiim waaya okay halkan marka variable-ladan waa soo diray programka soo diray waaya variable kan hadda wuxuu noo keediyay this declares a variable declaration marka sameeynayna waaye variable ka marka marna waa la declare gareeyaa marna qiimo la siiyaa marka waa soo aragteen mostly int var hada iraado kaliya hada iraado int num oo kale hada iraado var waxa uu cararay inay noqoto keyword inay noqoto ka cabsado ama var a hada iraado okay kaas oo kale waxa loo yaqaanaa declaration marka abuuranayo hada var a oo kale qiimo siisan karaa oo 10 oo kale waan dhigi karaa okay tan waxa loo yaqaanaa declaration iyo waxa loo yaqaanaa assigning value in la sameeyo ama qiimo la siiyo ayaa loo yaqaanaa okay ama erey kale English lahayd ama marna waa in adiga declare lagu sameeyo ama marna waa in definition lagu sameeyo waa labadaas qayb definition iyo declaration in lagu sameeyo ayaa marka loo isticmaalaa okay ka soo gudubna marka sidoo kale marka waxaan sameyn karnaa inaan sameeyno calculations variableska gudahooda inaan ku sameeyno wax la yiraahdo calculations inaan ku sameeyno ayadana waan awoodnaa macna for example in halkaan iraano int num1 is equal 10 oo kale int num2 ina iraano ama num3 20 ina iraano kadibna aan soo bandhigna marka dot out dot print ln kadibna iraano num1 loo qaybiyay num2 sidoo kalena aan dhigi karnaa halkaan aan dhigi kartaa marka just isticmaalaysa operators oo arkeenaa mathematical operators ka luqadda ay leedahay dhammaan operators ka way caawisaa marka ku dhufana saana loo isticmaalaa okay kadibna waxa leenahay hadda cls java c test.java kadibna waxa leenahay java test.java
kadib marka wuxuu noo soo bandhigi doonaa qiimayaasha marka haddii la isku qaybi haddii la isku daro waa 30 haddii kale waa -10 haddii kale waa 200 haddii kale waa division ay gashana waa 0 marka okay marka sidaa darteeda sidoo kalena ay maalin soo aragnay variable qiimihiisu isbedeli karaa soo hadda 10 wato oo haddana wuxuu qaadan karaa marka la isku daray kadib wuxuu qaadan karaa num1 is equal 20 waa dhihi karaa oo qiimihiisu marka la isbedelaa okay qiimihiisu marka la isbedelaa marka oo qiimihii hore waxaa ku darsamaayo qiimo cusub marka hadda meesha hore 200 ahayd hadda waxay noqotay 400 meeshan 0 ay noqotay hadda waa 1 simbolka waa wuxuu qaadanaa 1 ayuu inoo qaata marka qiimihiisu isbedeli karaa ilaa variable-ka markaa samaynayo in lagu magacaabo final la yiraahdo final haddii mar la sameeyo waxay ka dhigan tahay isma bedeli karo variable-kaas marka oo variable la bedeli karo qiimihiisa la bedeli karo ma noqon karo marka okay java test dot java hadaa iraahdo then halka maxaa lagu yiri cannot assign a value to final variable num1 marka ma qaadan karo marka num1 already waxaa lagu dhahay 20 waa istaa qiimahaas marka qiimo kale ka duwan ma qaadan karo marka waa very simple marka tijaabin kartaan iyadoo calculationskaas la sameynayo marka halkan waxaa lagu yiri test your skillskaaga tijaabi as we saw above waxaa isticmaala calaamadaas to work out with quotation of verbi inaan isku qaybano to given that plus perform addition subtraction and multiplication write a program waxaa noo qortaa program which performs all the named operations by using two integer values which are hard coded into the program so marka hal tusaale idin siin doonaa iyadoo la isticmaali doono hadda programkana lagu diray programyada la idinka rabo oo isbuuc dambe aan oo keeni doontaan insha Allah ayadoo ku dhafasho ku dar wax walba la sameyn doono hadduu ilaahay yiraahdo marka hal tusaale idin siinaa waxaan rabaa marka inaan isticmaalno input value ama qiimo in iyada la soo geliyaan rabnaa ma rabno in qiimo halkan lagu siiyo ma rabo soo marka maalin dheedno soo sheegay waxa u baahanahay markaan qiimo input ah ka gelinayo shaashada waxa u baahanahay dan package awood dheeraad ah u baahanahay inaan isticmaalo because in qofka userka laga qaado qiimo value-gaasna bytecode inta loo bedelo kadibna programka lagu assign kareeyo memory-ga meeshuu variable-kaas ka banaaya lagu assign kareeyo kadibna qiimihii haddaa u baahdo liisoo baas gareeyo dan howl adaga u baahanayo marka waagi hore waxaa isticmaali jirnay scanf waa function ku dhex jira maxaa la yiraahdaa main function ku dhex jira marka sida la joogo sidoo kalena scanf wuxuu ku dhex jiraa header fileska loo yaqaano input output ama cdio.h ayuu ku dhex jiraa marka halkaa hadda waxaa u baahanahay inaan iraahdo import java dot util sidoo kale dot scanner raaci karna xataa dot scanner soo ma jirto ama waxaa leenahay dot util wixii utility ah dhan ku jira halkaa noo raacay ayaa leenahay marka very simple import soo sameynayna java dot utility xaguu marka import aan ka soo qaadanaa programka meesha ku jira dee java xagee kugu jirta waa kana java halkaan ku jirto soo may halkaan ma softwareka java xagee ku jirto sida soo ma softwareka java waxay noogu jirta sida marka faylashii loogu talagalay in programku isticmaalo halkaas ay noogu jiraan java dheh waxaa tirahdaa java software jdk software meeshaan include file library file soo markays library fileskaana dhan marka anaga hadda aanan akhrin karin waxaa ku dhex jira wax walbo ay u baahan tahay java marka haddaa marka iraahdo waxaas ii soo qaad then halkaana laga soo qaadan doonaa marka la soco okay feelashaana laga soo qaadan doonaa okay kadibna marka waxaan leeyahay scanner u baahanaa marka meeshaan utility fara badan ku dhex jiro laakiin anaga scanner ka isticmaalayna scanner keena marka waxa u bixinaynaa sc ayaa u bixinaynaa waxa leenahay waxa u qaata inuu yahay new scanner object samaysan oo dhacda kadib waxaan leenahay system.in leenahay marka object-ga waxaa rabnaa mar walba inaan isticmaalno marka object-ga waxaa rabnaa waa adoo soo gatay shaati oo kale ama sarwaal oo kale soo iibsaday waayo meel ka soo iibsaday marka u baahan tahay waa isticmaalaysaa marka oo ii sheeg waxaan isticmaalaynaa sc ayaan isticmaalaynaa marka u baahannahay marka waxaan isticmaalaynaa wax loo yaqaano sc kadib halkan waxaan leenahay marka int num1 sidoo kale num2 ayaan leenahay iyo result ayaan halkaan leenahay bes kadibna qofka waxa u baahannahay inuu qiimo system.out.println marka tusaale aan siinay idinka laakiin waxaan idinka rabaa inaad keentaan isoo ku dhufa isoo ku jara waxyaabahaas hore laakiin waxaan tusaa hal operation aan tusaa insha Allah haduu ilaahay yiraahdo hal enter first number ayaa lagu leeyahay halkan kadib waxaa baahnaa marka in shaashada qiimo laga soo geliyo marka enter first number marka la yiraahdo dan shaashada qiimo laga soo geliyo ayaa u baahnaa marka
حلينا مرك system dot out dot print كليا ليه هاي أما كان نفتيس print كليا ده هاي new line كليا رواينا هو قرأ new line مو باني كتبنا حلينا مرك ما مو باني كان غلطان system dot out مو باني حاول بهنا إن قيمة اللي قبته حلينا مرك SC أيان ليه مرك أما حلينا هاي num1 وحلمت يا هاي SC dot next integer ayaa leenahay next integer ii qabo ayaa leenahay SC ha ii qabto next integer kala soo gelin doono oo ku xiga shaashada laga soo gelin doono ha ii qabto SC marka xagee la aadi doonaa SC maxay tahay inta la imaan doonaa marka ka saad calaamada fuusama SC waxay tahay new scanner oo sameeyna scanner cusub ileen maadaama 10 qiimo halkan soo gelin kara 10 qiimo marka waa 10 jeer oo cusub oo qiimo la qaadanayo okay raajara u baahanahay scannerka marka waa saas oo kale okay scannerka marka waa saas waxa leenahay SC new next dot integer ha igeliyo kadibna system dot in system kale gelin doona marka kadibna hadana waxa la leeyahay halkaan interface number soma waxa la leeyahay enter second number oo kale second number waxa la leeyahay halkaan waxa leenahay ln kadibna waxa leenahay halkaan num2 is equal waxa leenahay sc dot next integer waxa leenahay isagana qiimo cusub u qaadi doona marka soo marka laba qiimo hadda marka la hayo waxa leeyahay marka result waxay la mid tahay num1 plus num2 ayaa leeyahay marka result waxay la mid tahay num1 plus num2 kadib waxa leeyahay system dot out dot print ln waxa leenahay marka sum is equal ama isku darka waa isticmaali kartaa no problem kadib waxa leenahay result isoo qaad ayaa leenahay marka okay resultiga isoo qaadaan leeyahay marka okay so marka maxaa resultiga halkan ugu sheeganayo because waa marka kaliya labadan qiimo la hayo marka la hayo kor kuma sheegin karo because lama hayo markaas result waxay tahay lama hayo marka okay halkaan aan tagaynaa waxa leenahay okay no problem waa ii sheeg aan tijaabina markaad java test.java ayaa leenahay okay waxa la yiraahdaa halkaan interface number 10 aan soo galeena enter second number 10 kale soo galeena sum is equal 20 la yiri ayaa la yiri okay enter second number print intaan ka saar print kaliya leh okay halkaan imaan cls leh java test.java interface number 100 enter second number 1000 sum waxay la mid tahay 100 okay marka programkaas sida uu koobiyesid oo aad u dhigtid waxa la yiraahdo software-ki kale ay isticmaalayeen sida Eclipse oo kale si caadi ayuu u shaqeynaa marka exercise-kaas marka waxa la idinka rabaa next week idinkoo isticmaalaya calculations-ka oo dhan ku dhufo ka jar waxyaabaha soo dhan iyadoo la isticmaalayo ayaa la idinka rabaa marka ka soo gudubna marka mathematical operatories-ka iyo sida uu shaqeeyaan waa naqaanaa kaas waqti badan uma baahno plus minus multiplication loo qaybiyay ama division modules oo noo xisaabayo wax la yiraahdo reminder wax la yiraahdo noo xisaabayo ama module la yiraahdo noo xisaabayo okay halkaan waxa noogu jira program kale tijaaba labkana waa ku soo daray oo wuxuu ku jira programyada aan soo diray waaye halkaan fiiri waxa la haystaa integer iResult irem oo laga wado ireminder laga wado halkaan waxa la isticmaalay data type la yiraahdo double kaas oo ah d result